guul inaad gaarto sidoo kale xulkaaga aad ka caawiso waa wax fiican. Bayru waxay diiwaan gashteen rikoor la yaab leh. waxaa guushan looga mahadinayaa ciyaartooyda kale ah Carrillo iyo xidiga la yiraahdo Guerrero. laga yaabo inaysan dhalan markii ugu dambeysay xulkooda inay koob adduun guul gaaraan. ciyaartooydan ayaa shalay Bayru ka saaciday inay guul ka gaaraan xulka qaranka dalka Australia. guushaas waxay ka dhignayd in 30 sano kadib xulka qaranka dalka Bayru uu guul gaaro. 1978 ayaa Bayru ugu dambeysay inay badiyaan ciyaar ka tirsan koobka adduunka. shalay ayayna midaasi hirgashay. Andre Carrillo oo dhaliyay goolka koowaad ayaa 27 sano jir ah. kadib 3 sano ayuu dhashay markii xulka qaranka dalka Bayru ay badinayeen, balse 34 sano jirka lagu magacaabo Paulo Guerrero ayaa goobjoog u ahaa guushii xulkiisa ay gaareen. Paulo Guerrero ayaa dhashay 1984 waana 34 sano jir. sidaas darteeda xulka qaranka dalka Bayru guushaas waxay kaga dhignayd inay soo gabagabeeyeen 14,625 maalmood oo ay guul la'aan ahaayeen. Bayru inay badiyaan koob adduun shalay ka hor waxaa ugu dambeysay ciyaar ay 4 gool kaga badiyeen Iran 1978. weeraryahankooda goolka dhaliyay ee Paulo Guerrero ayaa hadda ah 34 sano jir, 176 maalmood, wuxuuna noqday ciyaaryahankii saddexaad ee Koonfurta Ameerika ka socda gool ka dhaliya koobka adduunka. waxaa ka horeeyay ciyaaryahan Martin Palermo oo Argentina isagoo 34 sano jir, 227 maalmood gool u dhaliyay, iyo xidiga la yiraahdo Abdoulaye Varela oo Uruguay gool u dhaliyay 36 sano jir, 279 maalmood isagoo ah. saadarteeda Bayru aaday ugu farxeen guusha ay gaareen kulankii shalay Australia ay la ciyaareen.